محمد وبعد waxay noo socday kitaabkii cumdat اlaxkaam liabi moxamed cabdulqani ibn cabdilwaaxid almaqdasiy marka waxaan ku jirnay kitaabu dahaara waxaan soo gaarnay baabulmasxi cala alkhufeyn baan soo gaarnay marka intaanan baabkaas gaarin hal xadiido ka horreeyey abu muusa alashcari ayaa waxaa ku jirtay nabigoo cadaysanaya ayaan u imid buu yihi calayhi salatu wasalaam cada qoyan wadarafu siwaaki meeshaas calaa lisaanihi nabiga carabkiisay dul saareed buu damiirkaas marka umaanan celin calaa lisaani carabka dushiisa umaa halkaas marka calaa lisaanihi nabiga carabkiisa dushiisa ayuu cadowgu saaray wey darafkiisu alayh salatu salam baabulmasxi cala alkhufeyn wuxuu ku saabsan yahay ama uu baab yahay labada kuf oo la masaxo qofku waxa weeye wuxuu ahaan jira maqaar marka ilaa wuxuu gaarayaa ama uu dhaafayaa qoobabka u dhaafayaa intii loogu talagalay weysada marka kaas haddii hadda uu qofka haystaan wuu masaxayaa waxaa kaloo iyaguna lamida sigsaanta lamida jawrabeyn sigsaanta ama sharabaad iyada waa lamid oo waad masaxaysaa marka waxaa shardiya inaad marka hore dahaaro qabtay oo qubays waajiba iyo waxba aanay kugu jirin waxaa ku dhamaysan yihiin kadibna aada weyse qaadatay shaygan ama sigsaan ha noqdo ama khufeyn caadiyihi inaanu isaguna nijaasahayn oo daahiriya markaas haddii aada maaragtay saxaro iyo kaadi iyo kaaga buri mayso qofka musaafirkaana waa 3 maalmood iyo habeenadooda qofka muqiimkaa ee joogana waa habeen iyo maalin 24 saac weeyaan marka mas'aladuna berigi hore waxay ahayd waa sideeda waa mas'alo fiqiya weeye laakiin markii dambe nimanka la yidhaha shiicada iyo maaragtay khawaarijta ayaa ka hor yimid nusuustan kadibna waxayba noqotay mas'alo caqiida ah alxadiidu 21 xadiidka 21 can ilmugiirata ibni shucbata radia allahu canhu qaal waxaa laga wariyey mugiira ibnu shucba inuu yihi kuntu maca nabiy nabiga ayaan mid la socda ayaan ahaa sala allahu alayh wasalam fii safarin safar fahaweytu waan hoobtay oo waan foorarsaday lianzica khufeyhi labadiisa kuf inaan ka bixiyo faqaala wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi dachumaa ka tag iska daa labadan kuf fa inii anigu adkaltuhumaa labada lugood baan geliyey daahiratayni labadooda daahira macnihi wa masaxa wuu masaxay calayhimaa dushooda labadii kuf marka mugiira ibnu shucba isagu waxa weeyaan saxaabi jaliila weeye caamu khandaq ayuuna soo islaamay wuxuuna ahaay nin aada u caqli badan oo siyaasad badan oo aada iyo aad kamida saxaabada kuwooda maarata hogaamiyeyaasha ah marka isagoo waxa uu ku dhintay zamankii mucaawiya ayuu dhintay 11 iyo 50 waa la isku khilaafaa isagoo waali ah oo dhinacaasi kuufa الحديث 21 xadiidka 21 عن المغيرة بن شعبة waxaa laga wariyey رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم nabiga ayaan la socday bu في سفر سفر فahweytu waan hoobtay nabigu markuu soo weyse qaato intii kale soo dhaqay inuu kabaa ka bixiyo lianzica khufeyhi inaan labada kuf ka siibo faqaala wuxuu yihi dachumaa ka tag labadan fainii anigu adkaltuhuma waan geliyay daahiratayn labadooda daahira famasaxa calayhima dushuu markaa ka masaxay marka waxay ku tusinaysaa in maaragtay aanay u baahnayn marka in la dhaqo lugihii oo ay tahay muxuu ahaa in marka hore haddaad dahaaro ku gashato ina markaa dusha laga masaxo hoosna laga masixi maayo xadiidka 22 can xudayfata ibnu yamaan can xudayfata ibnu yamaan waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kuntu maca nabiy nabigaan la socday sala allahu alayhi wasalam fii safarin safar fabaala nabigu waa kaadiyey watawada'a waana weysaystay wamasaxa wuuna masaxay buu yihi calaa khufeyhi labadiisa kuf mukhtasaran xadiid lasoo gaabiyey weeye xadiidku laakiin safar ma ahayne saasay wada qorayaa soo maaha safar buu kuu qoraya anna waa idii qoraya laakiin maaha safar ma ahayn muqiim buu ahaa weliba madiinu jooga alayh salatu wasalaam marka xudayfana waa soo marnay tarjamadiis alxadiid 22 xadiidka 22 can xudayfata ibn lyamaan radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kuntu maca nabiy nabigaan la socday sala allahu alayhi wasalam fii safarin safar fabaala nabigu waa kaadiyey watawada waa weysaystay wamasaxa wuuna masaxay khufeyhi labadiisa kuf mukhtasara kana waa muqiimkii ee safar maahayn kaasna waa safarkii safarkaana waxaa la sheegaa inuu ahaa
qaswatu tabuka salaat alfajri inuu ahaa safarka waxaa sheegayaa xadiidka mugiira weyaan. baabun fi lmadyi wa gayrihi wuxuu baab yahay madidii iyo keyrkeed. marka waxaa jira madi iyo wadi iyo mani. manigeda waa la yaqaano, waa tan caadiga ah qubayska waajibida. wadina waxaa la yidhaahdaa markuu qofku saxaro ama kaadi u fariisto waxyaalo maaragtay biyo soo raaca weya cad jilicsan, iyagu waxay ku xog yihiin kaadidaasi kuxug waa la iska mayri uun bis. madina waaba tanahaaho waa biyo dhareera oo rag iyo dumarba ka yimaada oo macnaha waktiga qofka shahwadiisu kacdo ayayna yimaadaan. iyagana waa la mayrayaa, meeshay gaarin waa nijaas, waa la dhaqayaa dakarkana markaas. baabun fi lmadi madidii ayuu baab yahay wagayrihi keyrkeed. alxadiid athaalitha walcishruun xadiidka 23 marwiyin waxaa laga wariyey can caliy bn abi aalib radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa rajula nin madaan madi badan fastacyaytu waan ka xishooday an as'ala rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay inaan weydiiyo limakaani ibnatihi minii, waana gabadhiisu booska ay iga joogto aniga darteed. fa amartu waan amray almiqdaad ibn laswad ninka la yidhaha fasa'alahu waa weydiiyey faqaala wuxuu yihi yaqsilu wuu mayri ninkaasi dakarahu dakarkiisa wayatawada-u waana weysaysan. welilbukhaariyina bukhaarina waxaa u sugnaa iqsil mayr dakaraka dakarkaaga watawada weysayso ni waday adiga tahay. welimuslimna tawada weysayso wandax ku firdhi farjaka dakarkaaga farjiga. cali bn abi aalib isagana waa la yaqaanaa, waa nin kamid a khulafaa raashidiin, afarta khulafo ayuu kamid yahay, waa raabic, waa amiir lmuminiin, wuxuu kamid yahay 10 lmubashiriin, 10kii jannada loogu bishaaray iyagoo nool ayuu kamid yahay. waxa weeye gabadh xaaskiisuna waa faadima binti rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam, waa gabadhii nabiga. nabiga ayay ilmo adeer yihiin, lama soo koobi karo yani taariikhdiisi waa dheer tahay. marka guriga nabiguna kusoo koray markii aabihii abi aalib dhintay. aabihiina wuxuu ahaa nabiga adeerkii oo weliba difaaci jiray. marka markii dambena isaga iyo mucaawiya isqabtay oo dagaal dhex maray. marka adigu wuxuu ku dhintay kuufo markuu taariikhdu markay ahayd hijriyada 40kii. waxaana dilay nin la dhihi jiray cabdiraxmaan mulji oo ahaa khawaarij ahaa, oo markaa u qaatay inay macnaha u fahmay inuu janno ku tegi doono, laakiin bal ilcaksu saxiix. marka nimankan la yidhaahdo waxay gaarsiiyaan meel way quluwii ku sameeyeen shiicada nimankan la yidhahdo. khawaarijtuna waxa weeye waxay sameeyeen iyaguna way gaabiyeen, xadgudubay sameeyeen dhinac kale ah. marka ahlu sunnuhu isagoo wasat oo ma ogola inaad quluwi samaydo iyo inaad samaydo tafriid gaboodfal. marka khawaarijtina gaboodfal ay sameyday, shiicadiina quluwi oo iyagu waxay gaarsiiyeen boos kale iyo inay saxaabada inteedii kale ay maaragtay ka dhigaan waxaan jirin, oo abubakar lacnadaan, cumar lacnadaan, yani waxyaala aan lasoo koobi karin. marka cali bn abi aalib waa ninkaas amiirulmuminiinka ah, kamid a 4 khulafo oo nabigeena uu yihi alayhi الsalaatu wasalaam facalaykum bisunatii wa sunati khulafaaء الraashidiin. marka ma soo koobi karin, taas kusoo koobina. an ali alxadiiث الثالث والعشhruun xadiidka 23 marwiyin waxaa laga wariyey can caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa rajula nin madaan madi badan fastaxyaytu waan ka xishooday an as'ala rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alle inaan weydiiyo limakaani ibnatii minii, waana halka ay iga joogto gabadhiisu oo xaaskayga ah weeyaan. yani waa laga xishoodaa dadka xididka, macnaha waxyaalka qaar loolama tago. fa amartu lmiqdaadaan amray bin laswad, cilmigana waa la raadsadaa oo lagama tago. marka labadii wuu isku sameeyey. fa amartu waxaan amray almiqdaad ibn laswad ninka la yidhaha fasalahu wuu weydiiyey. faqaala wuxuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yaqsilu waa mayrayaa dakarahu dakarkiisa wayatawada wuu weysaysanayaa. welilbukhaariyina iqsil dakaraka dakarkaaga mayr watawada weysayso. welimuslim tawada weysayso wandax farjigaagana biyo ku firdhi. waa mayr macnihii. marka khilaaf oo culimada way isku khilaafeen oo qaar baa yihi dakarka o dhan baa la dhaqayaa, qaarna waxay yidhaahdeen booska
muxuu ahaa ay wax gaareen ayuun baa la dhaqayaa. marka aduu meeshay gaarto kaadaas waa nijaas, waana la iska dhaqayaa. alxadiidu الraabic والcishruun xadiidka 24aad marwiyin waxaa laga wariyey can cabaad ibnu tamiim can cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim almaaziniy saaxiib alwudu ayuu ka wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi shukiya waa loo sheegay ila nabiy nabiga sala allahu alayh wasalam nabiga ayaa looga cabtay arajulu nin aladii kaasoo yukhayalu lagu malagelinayo ilayhi ninkaas anahu isagu yajidu shaya shay inuu helayo fi salaati salaada dhexdeeda. faqaala wuxuu yihi nabigu alayhi salatu salaam laa yansarifu yaanu gadoomi, laa yansarifu gadoomi maayo, salaada ka bixi maayo xataa yasmaca sawtan ow yajida riixan, ilaa uu cod ka maqlo ama uu ka helo riix. marka xadiidkanina wuxuu ka hadlayaa inaan shaki yaqiin loogu maaragtay lagu burin. shaki yaqiin uga bax weeyaan arrintii soomaalida, laakiin waa cagsi. oo mathalan adoo weyse qabaad ogeed waxaad istiri armaad weysadii kaa burtay, waxaad hubtaa inaad weyse qabtay soo maaha, khalaas weysadaad unbaad raaci. ama adigoon weyse qabin baad ogeed waxaad istiri armaad maaragtay weysadii maaragtay armaad weyse qaadatay, meel baad soo martay masaajid gashadaay, inaadan weyse qabin baa saxiixa. marka tii aada hubtay ayuun baad haysanaysaa, tan lahubaa la haynaya. mathalan hadda waxaad tukatay 3 ragcaad hubtaa inaad tukatay, 4 armaad tukataa istiri mana hubtid, waad tukanaysaa tan kale 5 ba ha noqoto, ilaa yaqiin baad haysataa. hay yaqiintu waa can cubaad ibnu tamiim waxaa laga wariyey can cabdullah ibnu zayd uu ka wariyey ibnu caasim almaaziniy radi allahu canhu qaala wuxuu shukiya waxaa looga cabtay ila nabiga sala allahu alayhi wasalam arajulu nin alladii ninkaasoo yukhayalu lagu malagelinayo oo la tus macnaha qalbigu iska leeyahay ilayhi isaga waxaa lagu malagelinaya anahu isagu yajidu shay inuu helayo fi salaati salaada. shaydaan baa yani qashqashaadayo wuxuu isleeyahay salaadii waxbaa soo galay, neef baa kaa timid. faqaala nabigu wuxuu yihi alayhi salatu salaam laa yansarifu yaanu ka bixin, laa yansarifu ka bixi maayo salaada ama gadoomi mayo xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa, ilaa cod ka maqlo ama uur ka helo weeye. marka shaki salaada talaacub maaha, waa mar haddaad gashay waa gashay, waxaad hubto mad oo bixi. alxadiidu alkhaamisa والcishruun xadiidka 25aad marwiyin waxaa laga wariyey can umi qays binti muxsin alasadiy annaha gabadhaasi atad way tagtay biibnin bay la tagtay wiil lahaa iyada usugnaaday sagiirin oo yar oo lam yakul iطcaama cuno aan cunin ilaa rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam, rasuulkii alle ula tagtay. faajlasahu rasuulku wuxuu ku fariisiiyey salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi fii xijri dhabtiisa korkuu saartay. fabaala wuu kaadiyey wiilkii calaa thawbihi rasuulka maradiisii calayhi salatu wasalaam. fadacahu waa loo yeeray bimaa-in biyo fanadaxahu waa ku firdhiyey nabigu alayh salatu wasalaam calaa thawbihi maradiisa dusheeda, walam yaksilhu mana mayrin. wa fii xadiidi caaishatana wuxuu ahaa umi lmu'miniin radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alla uutiya waxaa loo keenay bisabiyin wiil yar, ilmo yaraa loo keenay. fabaala waa kaadiyey calaa thawbihi maradiisa dusheeda. fadacaa waa u yeeray nabigu alayhi salatu wasalaam bimaa-in biyo u yeeray. faatbacahu waa raacsiiyey iyahu kaadidii. welimuslimna wuxuu ahaa u sugnaaday faatbacahu nabigu wuxuu raacsiiyey biyihii bawlahu kaadidii cunuga, walam yaqsilhu mana mayrin. wallahi wasalaamu caleyh. xadiidkan waxaa wariday umu qays binti muxsin, waxay la dhalatay cukaasha bin muxsin ninka la yidhaah, oo markuu nabigu sheegay calayhi salaatu salaam uu yiri ummadayda waxaa ku jira 70,000 oo macnihii aan maaragtay bilaa xisaabin walaa cadaabin jannada gelaysa. markaasuu istaago u yiri rasuul allow ilaahay ii bari in kuwaas alla igu daro. kuwa waxna tufin bay ahaayeen, waxna lagu tufin saas oo kale xadiidkii. markaasuu yiri waa kamid baa tahay insha allahu. marka nin kalaa yiri anna ilaahay ii bari. markaasuu yiri waxaa kaaga hormaray cukaasha, sabaqa kabiha cukaasha. ninkaasay la dhalatay gabadhan, magaceedana aamina la yidhaahdaa.
culamada qaarna waxay yidhaha magacaan haynba male kunya un laakiin kaasaa xoog bad. الحديث الخامس والعشرون حديث كشن يلباتنات عن أم قيس بنت محسن وحال وري الأسدي أنها أتت إن لا تكتئيدو بابن لها عنق بابن ويل لها يد أسرها وصغير ير ولم يأكل طعام عنان عن إلى رسول الله رسولك الله ولا تكت صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسولك وكفر في حجره نبتي سوساري فباله كاديي على ثوبه مرضي سدوش هذا فدعا النبي وحوير عليه الصلاة والسلام بماء بيوه فنضحه وكفر على ثوبه مرضي ولم يغسله من رغب مركا حديث كان وحيكون جرى حقنا الماء يرير كا markii maaragtay wiilkoo kale wiil yar oo laba sanana aan gaarin cunto aan ahayn aan cunin kaadidiisa biyo unbaa lagu firdhina la mayri maayo amaa gabar hadday tahay iyada waa la mayraya gabar hadday tahay waa la dhaqayaa laakiin isaga biyo unbaa lagu rusheynaya waxay kale ku tusinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu maaragtay u yahay raqiiq الqalbi oo u jecel yahay dadkiisa ilmaha usoo dhaweynayo ousan yani iga fogay cunugaan iga wadiyo meesha ma jirto korkuu soo saaranaya alayhi الsalatu wasalaam saxaabaduna waa u keeni jireen ilmuhu markay dhashaan iyagoo yaryar ayay keeni jireen marka taxniiga u samey jiray yani timirta intuu calaliyo dhanaaga u tiraya marka waxaa laga qaadanayaa xukunka ah in maaragtay aan la mayreyn cunuga yaroon cuntana cunin aana ka duwan laba sanana aan gaarin iyo in ilmaha lasoo dhaweeyo oo kolka la saarto oo culmo iyo caamaba loo jilicsanaado halkaasna waa laga qaadanaya. wa fi xadiidi caaishata um lmu'miniina wuxuu ahaa xadiidkii caaisha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alla utiy waa loo keenay bisabiyin ilmo yar oo wiil wey fabaala waa kaadiyey calaa thawbihi nabiga maradiisa alayhi salatu salaam fadacaa nabigu wuxuu u yeertay bimaa-in biyo faatbacahu biyuhu raacsiiyey iyo kaadidii walimuslimna waxaa u sugnaa faatbacahu biyihii buu raacsiiyey bawlahu cunug kaadidiisii walam yaqsilhu mana mayrin nabigu alayhi salatu salaam. الحديث السادس والعشرون حديث كاللحية لباتنات مروي وحال لقوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي من البادية أيا يمت فبالوا كالي في ضائفة المسجد مسجد كقيب كمذا فزجره الناس ضدكي أيا حرري أما عنانتي فنهاهم النبي كرر صلى الله عليه وسلم ويردايه عنانين وهلا الدرين فراك قاضى فلما قضى بوله مرة قول ما يستكاديسي أمر النبي وحو أمري صلى الله عليه وسلم بذنوب دلو مما انبياء وذان فأهريق والغشبي عليه كركيسة ماشي دوشي هذا معناه بوسك دوشي يسوي لأنك كركيسة معها حديث كان وحولي أنا سوى صومر ناس نكتب جمديسة وحولي نرجع البادية أيضا مسايك اللي فضيو النبي أصحابه الجوغان عليه الصلاة والسلام نرجع البادية صوغري قس كاسو استاجك هذه مسايك الحديث أيوك هذا الفريست kadibna saxaabadii yaa waxay damceen inay garaacaan oo yidhaahdaan meesha maxaad moodo hadii ku kaadinaye oo ay meesha ka raacdeeyaan nabiguna waa diiday alayhi salaam u kaadiyo kaadida ha dhamaystay suga marka kaadidii markuu dhamaystay yaa waxaa dhacday ayuu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam wadaan biyo hala keeno dalow ama wadaan dadka reemiga yaqaan oo maqaara laga sameyn jiray berigii hore miyuu ka samaysan jireen mar dambana tube ayay maaragtay soo baxay oo la helay dabcan marka nabigu marka wuxuu yihi alayhi salatu salaam markii ha lagu shubo biyihii masjidkuna ma ahayn sidaan oo kale wuxuu ahaa carro ahaa waa lagu shubay khalaas saasuuba daahir ku noqday waxba carre iyo waxba lama qaadin marka axkaam badanaa ku jirta xadiidkan oo ay kamid tahay marka aad rabto inaad munkar reebto waa inaad eegtaa munkarkaas waxa ka imaanayo haddii munkarka weynu ka imaanayo ma reebi waa iska daynaysaa haddii mid le ka imaanayo waa iska daynaysaa haddii laakiin munkar ka yar amaba uu zuulayo waa la samaynaya ama waxa la yidhaha khafudaralayn laba dhibaa ku qabsaday midka fudud baa qaada marka xadiidkan hadda isagu wuxuu ka hadlayaa oo caddaynayaa nabigu alayhi salatu wasalaam waa diiday wuxuu u diiday masaalix badanaa ku jirta hadduu ordoon ninka la garaaco ninku asagoo kaadi waa isku nijaasayn masaajidkiina waa sii nijaasaynaya midda kale waa ku xanuunsanaya kaadidii
oo waxaa laga yaba in xanuun ka qaadaba intay ku go'do ma ujeedaa marka dadka in cilmiga loo sheego way tahay laakin bilxikma weeyaan si xikmadaysan in loogu sheego nabiguna waa u sheegay calayhi salatu salaam markuu u dhameeyey meeshiina la daahiriyey waa u sheegay wuxuu yihi masaajidan looma ogola wax kale wey ilaa markii dambe uu yihi ilaahu aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kalena aan noola naxariisanin labada iyada bis noo naxariiso wuu ilaa ujeedaa macnaha meesha wax ka socda iyo ragga laga hortaagaya marka waxay ku tusinaysaa marka nabiga calayhi salatu salaam xikmadiisa siduu dadka wax u bari jiray marka dad kale waxaa jira juhaala oo yidhaahda xadiidkan u daliishada qaab aan daliil u ahayn oo waxay leeyihiin markay arkaan qof xumaan ku jira waxba ha u sheegin isagaa iska fahmi doonee ha u sheegin ba adugu waa khalad waa khalad soo iskaga fahmayaa adiga xadiidkan haddaan lagu akrin miyaa iska fahmaysaa waa in lagu akriyo lagu sheego ninba nin baa u sheego ninba nin buu ka bartay marka ma dhici karto taas waa waali macnaha waa qof raba inaan diinta dadka loo sheegin markaasuu xadiidkan ku gamanaya oo leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tou iska dhaafin ninkii iskama dhaafin hawsh waa laakiin qaabkii la adeegsaday ayaa qaab wuxuu ahaa xikmadaysan marka waa loo sheegayaa laakiin waxaa la qaab xikmadaa wax loogu sheegayaa qofka ee laysaga ordi maayo laakiin in laga aamuso maahan oo la yidhaahdo cilmigii la qariyo taasi waa dembi weyn wey alxadiidu saadisa walcishruun xadiidka 26 can anas bin malik waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal wuxuu yihi anas jaa acraabiyun baa yimid acraabtu waxaa weeye sukaanulbaadiyati wey dadka baadiyaha degan baa acraab la yidhahdaa fabaala waa kaadiyey fi daa'ifati lmasjidi masjidka qayb kamida fasijarahu nnaasu dadkii ayaa canaantay oo hororay fanahaahum nabiyu nabigaa ka reebay sala allahu alayhi wasalam war ukaadiy ursuga oo nabigu wuxuu yihi waxaa laydin soo diray idinkoo muyasiriine dadka dad macnaha ufududaynaya diinta idinku ah ayaa laydin soo diray laydinma soo dirin yani inaad diinta ku cuslaydaan dadka yani qofkii qalad sameeyaba haddii si adag loola macaamilo waxaa laga qofku diintana ka cararo iyadoon xaqiina laga qarinayn ayaa bilxikma wax loogu sheegayaa wey laakiin in xaqa la qariyaa iyadoo meesha kuma jirto falamaa qadaa bawlo markuu kaadidiisii dhamaystay amara nabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu alayhi wasalam bidanuubin dalow min maa-in biyo ah wa uhriqa waa lagu shubay caleyhi meeshii booskii yani makaankii dushiisaa lagu shubay makaankii kaadidu gaartay oo yani meel kooban aheyd ayaa lagu shubay saasayna daahir ku noqotay marka dadka qaar waxay samaynayaan maryay soo qaadanayaan soo qoynayaan marka guriga meel ka nijaasoobo deetana maryahaasay saa u marmarinayaan booskiina way nijaaseeyeen ayaguna way isnijaaseeyeen meel kalena way sii nijaaseynayaan taas naf male waxaas naf male marka de meesha waxaa la rabaa sidaan oo kale in maaragtay biyihii loogu shubo meesha haday taa meel biyihii la qaysa marka intaasaan kusoo koobaynaa caawo wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.